guddi heer qaran oo dhawaan u magacaabay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ee socodka labada wadan ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii u horeeyay uu ka dhacay magaalada Hargeysa xafiiska wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland shirkan uu shir gudoominay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire ayna ka soo qayb galeen wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha duulista iyo hawada dibadajinta iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadaha diyaaradaha kulankan oo saxaafadu dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta uga warbixiyay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani waxaanu yiri waxaan ku rahdaa travelinka iyo socdaalada security-guna ay maxaan ku rahdaa iyo nabadgelyaduna ay saameyn ku lahaan lahayd arinta qodobbada laga soo gaadhay qodobada waxaan u gudbin doonaa golaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland guddida magacaabay si fiican ayuu ku dhamaaday wasiirkii gudoominayay iyo wasiirada kalena aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa adeerkeen waxa weeye inuu noqdo laba wadan sida aynu wada soconaynaa oo yaani aanu socdaalku noqdo Soomaaliland iyo Soomaaliya in laba wadan oo kala jaada ay yihiin sidaana la soo arko sidaasna maxaan ku rahdaa xiriirkaas uu ku dhismo kuna koro runaantii qodobka kale ku jira waa intaas waa markii ugu horeysay madaxweyne Axmed Siiraanyo guddi heer qaran oo magacaabay socodka labada wadan ee Soomaaliland iyo Soomaaliya taas oo haday midho dhasho wax badan ka tari doonta dhinacyada nabadgelyada ganacsiga iyo socodka bulshada labada dhinac Maxamed Cabdi Ibrahim telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa